السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمة المسلمين المركز جوجان سلام الله. أنا عشر كلمات حكوسة بسني هاي سدا الحكت أدوق لنا هدا هذا. أوكي هدا با كور برادر أنا سيستر أنت أن عشر كانت بلابين فضلا سبسكرايب يلايك تا and وادني عينا. أوكي عشر كان بلونه ستارتي بتجسا هالقرصة SQL دنا السيرش كينجاس هتقرصة وكا ران SQL command line baad ku dhufanaysaa. Okay sidan baa kusoo baxaysa run SQL command line baan ku dhex jirnaa hadda commandigi baan ku dhex jirnaa saa markay tahay waxaan data aan gelin karnaa ma jirto ilaa aan connect gareyno ilaa aan ku connect gareyno systemka waxaad qoraysaa connect system markaad qorto waxaad dhahaysaa enter. Okay inagu yiri enter geli password geli waxaad qoraysaa database passwordkina wuxuu inoo ahaa database sidana cashirkeena hore aan kusoo baranay waxaad dhahaysaa enter ma muujinayso laakiin bes waad qoraysaa waa inaad saxdaa passwordkaaga kadibna enter hadduu connector kusoo qoro waxay ka dhigan tahay waad xogtaada waad gelin kartaa waxna waad ka bedeli kartaa waxna waad kusoo kordhin kartaa. Okay haddaba cashirkeena hore tablekan soo sameynay aan aragno seen u sameynay waxaad qoraysaa this saasaad qoraysaa this tableka magaciisa wuxuu ahaa students waan qalday students semicolon enter waa kan student ID number name oo ah farkar cashirka tan hore usoo sharaxay watan hore uu yiri student ID wuxuu noqon karaa integerna waa number وكان نمبر كموقدا نيمكينا واكن نيمكنا وفاركر أو alphabet واكن فاركر شيطان كسوسينا هذا سيبينه حكتان كو جلين كرنا. أوكي كوا سوقات داتا أرونيسو أرضي باكويمي أرضي ربعنا إنه اسم سكبو كولج كاجا شام عددا. أوكي سيبات مسكبي كرتا داتابيس كام حكت أدوار أرون كرتا واحد قريسا insert جلي بكلية هاي into students geli students wuxuu ku leeyahay insert geli students geli gudaha tablekaaga geli ardaygan waa kan fiiri waa kan waxaad qoraysaa insert into students insert into markaad qorto tablekaaga magaciisa qoraysaa oo ah inagu wuxuu inoo yahay students adigu waxaad ka dhiganaysaa insha Allah ikhtiyaarkaaga laakiin inaga wuxuu inoo yahay students haddaba inta markaad qorto waxaad qoraysaa student ID ardaygu wuxuu lahaan karaa bracket for student ID waa weyn u lahaadaa ardaygu name weyn u lahaadaa waxaa kale age weyn u lahaadaa faculty-gu baranayo weyn u lahaadaa address meeshu ka soo jeedo waa inuu lahaadaa ama meesha laga helayo. Okay bracketka xidh inta markaad qorto intan ma qoraysid intan waa ferretka waa marka tableka la sameynayo in weeye laakiin inagu waxaynu qoranaa intan halka ka muuqata ba qoranaa haddaba inta markaad qorto waxaad qoraysaa values bracket for ardaygan ugu horeeya aan maskabino collegekeena aan ku maskabino adigiisa waxaan ugu dhignaa number 1 comma arday magaciisa waxaa la dhahaa Hamze Xasan Aadan kaba soo qaad sorry intaan ku faansiyo ifan hadii wuxuu magac yahay amba alphabet haduu yahay horootan soo sheegay oo ah inuu noqon doono marka la soo sameeyo tableka farkar baan ka dhignay haddaba marka la gelinayo waa inuu halka hore oo kamera quotationkaas wayna ku bilowdaa quotationkaas waxaad qoraysaa Hamze Aadan Ismaaciil example hada wiilkan Hamze Aadan Ismaaciil haddana quotationka ku soo xidh saa markay tahay comma hada waxaan qornay ID-gi iyo magacii waxaa ku xiga age-gi baa ku xiga waa kan fiiri age-gi baa ku xiga age-ga waxaan uga dhiganaa 20 maxaa ku xiga faculty baa ku xiga faculty-ga waxaan uga dhiganaa maadaama faculty-gu isna uu yahay alphabet waxaa halka hore ka maraya aan hore u yiri quotation wuxuu baranayaa ardayga ka soo qaad medicine hada ka soo qaad medicine ama nursing
haddana nursing bracket quotation haddana ku soo xidh saa markay tahay maxay noo helay address-ka laga heliyo jigjiga maadaama alphabet uu yahay isna quotation inaad ku bilowdaa jigjiga quotation ku soo xidh intaa markaad qorto waa ardaygii ugu horreeyay aan maskabno amba xogta aan ku arurno datadeena okay bracketka ku soo xidh saa markaad ugu soo xidho semicolon waxaad dhahaysaa enter wuxuu leeyahay error buu leeyahay errorku leeyahay wuxuu ku leeyahay it's too large buu leeyahay magacu aad buu u dheer yahay okay students okay halkan waxaan sameynaa waan soo gaabinaa magaca fiiri waan soo gaabinaa okay ismaaciilkaasaan ka reebinaaba laakiin waad qori kartaa okay one row hadda waxay ka dhigan tahay hal arday baan maskabnay one row haddaba ardaygan aan maskabnay sidee baan ku arki karnaa waxaad qoraysaa select oo marka aad arkayso select all from students inta markaad qorto semicolon waa kan ardayga ugu horeeyay idgu magiisa waa number 1 ila fiiri halkan okay ardaygu waa number 1 waa Xamse Aadan age-kiisuna waa 20 faculty-gu baranayo waa nurse address-kiisu waa Jigjiga haddaba waa wiil sidee baan haddana qof kale amba laba qof aan u soo gelin karnaa waxaad qoraysaa sidii oo kale insert into table-kaaga magaciisa oo ah aniga wuxuu ii ahaa students bracket for sorry halkan waxbaa khaldan sorry saad u aragto xagga sare ku geenaya clear markaad qorto clear macnaha muhiimad wax kale ha moodin waxaan rabaa waxaan intaan iska baabiyo inuu caadi aad si fiican u aragto okay semicolon markaad saas kor buu tagay okay haddaba arday kale aan gelin insert into students table-kiisa magaciisa markaad geliso intii baad soo qoraysaa waa kan intii baad soo qoraysaa ID-ga name-ka maxaa kaloo inoo ahaa age maxaa kaloo inoo ahaa faculty faculty maxaa kaloo inoo ahaa address intaa markaad qorto bracket ka xidh haddana waxaad qortaa values markaad qorto bracket ka fur ardayga labaad magaciisa waxaan uga dhiganaa ID-ga labaad gabadh hadda magaceeda la dhaho waxaan uga dhiganaa nimco watan hore ku yiri watan hore idinku markuu alphabet ama magac yahay quotation-ka inuu halka hore ka maraa nimco xuseen markaad qorto quotation-ka ku soo xidh halkan markaad marayso waxaad dhahaysaa comma hadda waxay ka dhigan tahay ID-gii wiilkii gabadha waan u sameynay magaciina waan u sameynay magaceedii haddaba maxay noo hadhay age soddon uga dhig comma faculty-ga ay baranayso waa software maadaama wuxuu alphabet yahay quotation-ka inaad sii gelaysa halka hore software haddana quotation ku soo xidh comma faculty marka maxay noo hadhay address oo ah Hargeysa maadaama isna uu yahay alphabet inuu quotation-ka halka hore ka maraa Hargeysa wakaa ku soo xidh quotation-ka halkaa markaad marayso bracket ka xidh saa markaad u xidho semicolon halkaa markaad marayso waxaad dhahaysaa enter okay error baa jira errorkaasu halkeebuu ka yimi wuxuu ka yimi software-ka ila fiiri halkaa software-kaasu ka yimi haddaba aan eegno errorka jira kasoo qaadba software-kan ka bedelno laga yaabo inaynu software-ka hore usoo gelinay waxaan uga dhiganaa kasoo qaad Arabic luqadda carabiga Arabic saa marka tahay enter waxay ka dhigan tahay sababta software-ku diiday waxay ahayd waxaa jirta data hore aan iigu jirtay aan arday ku diyaariyay software aan geliyay laakiin ku diidaya laakiin hadda wuxuu inoo yeelay Arabic okay saa markay tahay one row created haddaba sidee baynu ku ogaan karnaa ama ku arki karnaa ardaydan okay ardaydan duwan gelinay sidee baynu ku ogaan karnaa markuu booska kugu dhaho itus ardayda
liiskooda waxaad qoraysaa select all oo isku dhufashada ah oo la dhaho calaamad daayira hata isku dhufasho lama dhahayo all baa la dhahayaa from tablekaaga magaciisa students saa markaad tahay semicolon enter labadii arday waa kuwa student id student name iyo age key faculty iyo address key okay casharkeena maanta halkaa baan ku joojinaa insha Allah casharkeena saddexaad insha Allah waxaan ku baran doonaa sida aad u cusboon aad wax ku soo dar lahayd waxna aad ka dhalin lahayd tablekaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن oo wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta markaas joogan salaam allah